isbedel cusub oo hor leh nooca horumarineed ballanqaadi taariikhi ah oo bulshada Soomaaliyeed muhiim u ah ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawa uu ku dhawaaqay. waxaan rabaa khudbaddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ballanqaadadii taariikhiga ahaa iyo waxyaabihii uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan wax ka iraahdo iyo ballanqaadadii muhiimka ahaa socdaalkii taariikhiga noqday ee madaxweynuhu uu ku tagay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho sida uu xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Dr. Maxamed Yuusuf Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xilli habeen ah taga isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho si uu ula damqado xanuunka iyo murugada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay qaraxyadii ismiidaaminta ama qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ballanqaadyo muhiim ah oo weli madaxweyne Soomaali ah aanu ballanqaadin ballanqaadadaasi madaxweynuhu uu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa in madaxweynuhu uu yiri caawa laga bilaabo qofkii ku waxyeelooba qaraxyada al-shabaab ay ka fuliyaan Muqdisho iyo dhibaatooyinka kale ee ururka al-shabaab ay ka geystaan magaalada Muqdisho in qarashkooda baxnaaninta ah ay bixinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa madaxweynuhu uu sheegay in qofkii dhinta eheladiisa ay dhaqaale la wadaagi doonaan waxaa kaloo madaxweynuhu uu sheegay in haddii ay awoodaan hantida burburto in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixin doonto waxaa kaloo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay ee magaalada Muqdisho ee wax looga qaban waayay caasimadda in loo qaadayo caafimaad dibadda ah runtii marka laga hadlo xaqiiqda madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in uu ka dhabayn ballanqaadkaas waxa kale uu ku celiyay ballanqaad madaxweynuhu horay baarlamaanka uga horjeediyay oo ahaa in $100,000 la siinayo qofkii soo sheega baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan madaxweynuhu waxa uu sheegay in la bixinayo $100,000 arrinta kale oo xusidda mudan waxa ay tahay socdaalkii madaxweynaha uu ku yimid isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ma jirin wax jid ah oo loo xiray madaxweynaha Soomaaliya marka laga reebo wadada yar ee u dhaxaysa isgoyska Banaadir iyo isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho oo madaxweynuhu uu ku tagayay isbitaalka laakiin xilligo ah xilli habeen ah madaxdii hore wadooyinka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay u xiri jireen wadada Maka al-Mukarrama madaxweynuhu ma aanu soo marin dhaqdhaqaaqeeda ganacsiga iyo socodka dadka caadi buu u jiray laakiin waxa xusid mudan in wasiir in uu socdo iyo in madaxweynihii dowladda uu socdo dadka shaki uu ka galo laakiin waxa guul ah in ballanqaadyo madaxweyne hore Soomaaliya Soomar aanu sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya kuwaasoo ahaa in dhaawacyadii isbitaalka Madiina la geeyay laga bilaabo maanta qof kasta oo dhaawacmo qaraxyadii dhibaatooyinka al-shabaab ay geystaan in mas'uuliyadooda ay qaadanayso dowladda oo wixii qarashka ku baxay dowladda ay bixinayso in qofkii dhinto ehelkiisa dhaqaale la wadaagi doono in hantida burburto dowladda haddii ay awoodo ay waxesho ay bixin doonto in ballanqaadkii madaxweynaha
ahaa in qofkii soo sheega 100,000 oo doolar rasiinaya baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan marka waxaa la rabaa fariin shacabka ku socota lama rabo in mashaariic ay noqoto ballanqaadyada madaxweynaha Soomaaliya tusaalo kale waxaan u soo qaadanayaa waxaa la yiri madaxweynuhu wuxuu bixinayaa 100,000 oo doolar qofkii soo sheega baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan marka shacabku waxaa laga rabaa in aysan qorshaas ka dhigin mashaariic in aysan qaarkood la heshiin al-shabaabka qaarkood in ehelkooda baabuur ay ka soo qaataan waxyaabaha qarxa ay ku dhigaan ay ka buuxiyaan wadooyinka ay dhigaan iyagoo hunguriyeynaya in helaan 100,000 oo doolar waxa hay'adaha ammaanka dawladda ay sheegeen in qofka soo sheega baabuurka laftigiisa bagal u samayn doono la baari doono hay'adaha baarista haba jilcanaadaan inkastoo tabar daran yihiin hadda in laakiin baaris ay ku samayn doonaan qofka laftigiisa soo sheega baabuurkaas waxyaabaha qarxa ka buuxa in qof isaga 100,000 kun hunguriyeeyay uu yahay qof al-shabaab ku xiran uu yahay 100,000 nooc kasta loo fasiran karaa madaxweynuhu inkastoo horeyna u ballan qaaday mar kalena uu ku celiyay hadda Soomaalida naqaana dhaqanka naqaana dadka naqaana kuwa mashaariic ka dhigi doona kuwa NGO ka dhigi doona kuwa qorshayaal kale la iman kara oo marxalad kale ku raadin kara waxaa suurtagal ah kuwa ku xiran al-shabaab inay yiraahdaan baabuurta keena annaga soo sheegayno 70% lacagta qaata waa wax dhici kara laakiin waxaa la rabaa shacabku wali ma dhicin madaxweyne Soomaaliyeed xilli habeen ah inta baxay tagay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dhaawacay ay jiifaan xitaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isbitaal Madiina iyo isbitaal kala booqanay aniga ma arkin intaan ogahay ama xasuusto laakiin in marwooyinkii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ay tagaan isbitaalada Muqdisho oo ay wax geeyeen waa ogahay laakiin waxaa jirtay in dadka Soomaaliyeed Muqdisho qaraxyada waa meelo badan u nugul ay ka dhici karaan waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood dandarra isbitaalada ay ku haysatay waxaa jiray dad cirba joojin dhiig joojin iyo daawooyin aan haysan oo qaraxyada wax ku noqday haddii madaxweynihii Soomaaliya uu yiri waan caawinaynaa qof kasta oo dhaawacmo dawladda caawinayso lacagta ka bixinayso qofkii dhinto ehelkiisan dhaqaale la wadaagaynaa qofkii hantidiisa ay ku burburto tusaalo kale wadada Maka al-Mukarramo kale iyo wadooyinka kale ee Muqdisho ku yaala qaraxyaa ka dhaca hantiba ku burburta maqaayado iyo hoteelada la qarxiya hanti badan oo qaali ah burburta wali madaxweyne Soomaaliyeed oo mas'uuliyad iska saaray oo yiri hantidii burburtaan bixina iska dhaafay dadkii dhaawacmay iyo kuwii dhintay ma jirin madaxweynaha Soomaaliya waxa ka codsanaynaa in ballanqaadidiisa uu ka dhabeeyo in aysan noqon qowda maqashiyo oo waxnaha qaban in aysan noqon ballanqaadidii madaxdii ka horeysay waxaa jira dad badan oo wali dalkii ku dhibaataysan waxaa jira fanaaniin waxaa jira wariyayaal waxaa jira hooyooyin waxaa jira aabooyin dalka wax looga qaban waaye waxaan leenahay madaxweynaha dadkaasna ha ku daro dadkaas dhibaataysan dalka wax looga qaban waaye kuwa wadamadan Afrikada yaala jiro Soomaaliya laga soo qaaday askar dayac dareysana jirto dawladihii dalka ka jira aan wax u qaban madaxweynuhu hadduu bulshadiiba wax u qabanayo madaxweyne Allah khayr ku siiyo waxaan ka codsanaynaa inaad ballanqaadyo iska dhabaysid in aad noqotid madaxweyne bulshadiisa jecel si loogu jeclaado 100,000 oo doolar madaxweyne laftigeeda caqabad xoog laha ka imaan karta waxay u baahan tahay qofkii baabuur soo sheega dabagal in laftigiisa lagu sameeyo hada aniga tusaalaha baabuur uga soo tagaa laga yaabaa magaalada Muqdisho dad badan oo sidaas oo kala jira Soomaalida waa iska taqaan waa iska mashruuc badan tahay 100,000 sidii loo raadin kara loo raadinayaa marka waxaan leenahay bulshadana waa in lala shaqeeyaa madaxweynaha
وإن لا تاجرا وإن لا جفا إذا استا بلن قادسي أو أن يجرين مدحوينها رؤوس سميي maamulka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu shaaciyay in aanu jirin madaxweyne sida farmaajo kale u yimid isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho madaxdii hore ee isbitaalada tageysay waxa la socotay askar badan ciidamo hubaysan ka horeeyay laakiin madaxweynaha saraakiil baa la socotay si nabadgelyo oo bukaanada uu ku salaamayay waxaan leenahay waa tallaabo horumar leh waa tallaabo taariikhi ah لكن مدحوينها مدبان دادك قبيلك كود دفاعي أن أقدر إياه مدحوينه أديب بلنقادان تاريخي يبوق الشدان لو الرياقو اسبيتال مدينة وكتغي بلنقادان وكدنا بيواي ولا دليل يا ولا يارو كو قبيلك كود دفاعي مدحوينه نقد داف قبيل وحمد ترى قرنا نداقو مدحوينه قبيل معهن ومدحوينه قرن مريحان مدحوينه وما أهن ومدحوينه الصوماليات كو كود دفاعيو مدحوينه كو قبيل نهي يمرود مدحوينه وقوان كو قبيل نهي ولا يالو نقد داف مدحوينه ومدحوينه هني ومدحوينه هذا قبيل كورب هذا صوم مريحان ومدحوينه كويا صوم مريحان وأنا مدحوينه إياه أنا كو قنعسن لكن قبيلك أم مدحوينها كنت غيرسان ولا ليالو نقد داف نمان علماء الشيغان أيو أنا علماء آد بان احتراما مرة بينا كوحد قدبو مرة بينا وحكا الشيغو علماء واجه الله يحفظه الله إله النود ديستو لكن كو على شقيستيالا أو علماء الشيغان أيو أي هاد وحي اللي لما الشيغي كروه لما هاد كروه فرماجو هلا أيدو علماء سوى على شقيستيال وعلم قبيل وعلماء باهن وعلماء دلك بوليسي وركودنا قبل شمالهن وعن أركان يوم وذات شيكتو جرمك إنه جوانو ملينا وهذا كهوري إتوبيا دعينو دعاء الله كو أقمر سيادية شيخ نمتهد كوا صوت أفريقيا جوغو وحال الله في سوق لي علماء معهن وعلى شقيستيال علماء وقوة ذاتك وعي قليا وقوة مرحلة اللي جوا كهلا لكن علماء مشرح أما قف سياسي أو كان في قرينيس علماء معهن وعلماء قبيل وركودنا قبل شمالهن عد رمي سنة مجرت أنا علماء واحتراما علماء وين جرتو دلك دبدا كنول وكان دنبي وكمدي هاي شيخ عبد العزيز حسن يعقوب السعودي جو حفظه الله شيخ مصطفى اسماعيل هارون شيخ محمود او عبد الله عريف علماء بدن دينا الدين تاجوغو ان قبيلنا ان كنت تاغيرين لكن وعيجنتودا iyo barnaamijyadooda diiniga aan aad u jeclahay laakiin culummadan dhalinyarada ah oo cimaamadaha noo qaatay oo shabaabka ah iyo kuwa waalwaalan oo sida dabcasar oo kale diinta ku ciyaarayo walaalayaal wax laga qaadan dadka diinta ku ciyaarayo nin wadaad sheeganayo ku dhahayo aan u duceyno ilaahay Itoobiya inuu dawladeeda burburin aan u duceyno meel hebel oo maalin kasta YouTube-ka isaaqad ka raadinayo ninkaas sheekh ma ah qaanqaanu la mid yahay alkuliista way nolosha ka dhacay علماء إن كحد جود بمرة علماء واجعلها إلهي أنو ديست علماء شرفت له لكن كو عادقات ياشة أو شرف كي كتجي أو الشباب كأه أو دقمة أو قاركود نرش أقعد على يوروب الله سبحانه وتعالى لأن هاي هو وان يجنا وحنا لأن الله عافيه كو قد يد قبيلك أي لا تكتي أو آمنسن هدي فرماجو wax laga sheegay in mareexaan wax laga sheegay walaalayaal waa qaldantihiin raali ahaada farmaajo hadda mareexaan ma haduu shalay mareexaan ahay hadda waa madaxweyne qaran waa madaxweynihiini annaga dhan marka waxaan leenahay kuwa isla haysiyeeyo walaalayaal raali ahaada sheekhan la leeyahay naasir cadceed oo kala tihiin mareexaanima idin qaaday
قبيلة إذن قاضي شيخان هبل ور إله كل داريه ممليسين شيخ دهاي حس الشيخ إله هالنضافيو إله هالنضافيو إله دل شيء حسبه هباري ما أنت وحول ليه فرماجان دفاعيا ورهبل عدني قال لي والشباب وتوب وقائن وحول لم يدي بالبيري مجاجريستا شيكتو مرايكن كجوجا ما يسمحوها كحمل مثل حمر انت كده مجاجريستا اسكدغو دو عسلا ورمد مرايكن جوا وانا جرفتكيسه كل واو واش قد يد قبيله قاد فرماجو اما باع خفيف نقوي oo hadii qori lagu mudo uu buqaayo ama noqoy bir hadii biyo lagu shubo qoriga aanu kareynin waxaa jira kuwa iska dhigdhigaya wadaniyiin laakiin been abuuriyaal ah caadaqaatiyaal ku ugu xun ah oo leh halkii boosti $250,000 madaxweynaha ku soo caayil yiri boosti wadani ba ah nin kale waa been abuur wax ka jira malahan cid kasta sameey qofka 250 Facebook qof ku soo caay kugu siinayo yaa waay madaxweynaha Mareykanka dhalay ma ninka lacag soo sameeyaa dhalay war dadka wadaninimada si xun oo qaldan u gashay war wadani waa la noqdaa waa loo dhashaa laakiin nin asalkiisiba meel uu ka yimid alla aqoon oo caad qaata ah dadkiisii iyo deegaankiisii soo qiyaano soo gubay inuu yiraahdo waxaan ahay wadani waxa lacag la balan qaaday war waxaas umada laga daayo war walaalahay waxaas umada laga daayo nin wadaad sheeganayo tirofator ah oo Yurub kaam ku jiro waalan mid tima jara ku ah majaajilista sheegto Mareykanka habbi qaliif liiraa waalan dabca saro waalan wax noocaas kala soo baxay oo farmaajo qabiil isku lahaysiyaan isku dayayo dabca sar shalay waa nin waan la u xisaabinayay laakiin maanta waa waale nin fiyo soo noqday mareexaanow hobiyada kadib barbar ma la qaadan karo waa ka celinayna farmaajo war waxaas naga dhaafa xasan sheekh annaga nabadoonkeenna waa maantay waa macalinkeeni waa madaxweynaheeni shalay wuxuu ku qaldana waa ku dhaliilayna waa sheegaynay waa ku faraxsanayd annaga aynaga ma ahayn madaxweyne mucaarad naga ma ahayn laakiin dhaliisha jirta shalay oo madaxweynuhu uu lahaa waa sheegaynay maanta madaxweyne farmaajo hadda wanaagu qabtaan sheegaya muxuu u siin aniga booqasho taariikhi buu sameeyay balanqaadyo fiican buu madaxweynuhu sameeyay laakiin qabiil ku taageeri ma berri farmaajo hadduu wax qaldo sidaan baan u soo sheegayaa laakiin ma aha